marka adduunyada maartay saddexaad oo dhan ay haysay inay yihiin niman maartay thawriyiin ah waxay ahaayeen Boumediene Hawari Boumediene Allah naxariisto iyo Muammar al-Qaddafi labadan nin labada madaxweynaha Algeria laba goor aan la kulmay madaxweynaha Libya mar baan la kulmay mar walbana waxay noo ballan qaadayeen inay qadiyadeena ay garab siinayaan oo ay maartay taageerayaan goorma ayay ahayd safarkaaga kugu horeeyay ee Yurub ujeedadaada safarkaaguna muxuu ahaa sida ogtahay Axmedow Algeria arday baan ka ahaa qadiyadana waan ka faafinay waxa mar walba dhici jirtay Yurubka maartay siiba maartay nimanka la yiraahdo Scandinavianka markay fasaxa ay ardadoodu gasho waxa loo soo bixin jiray iyagoo wada basas badan saaran Afrika inay ku wareegaan group Denmark ah oo arda ah iyo rag waaweyn oo maartay siyaasiyiin isugu jiraan ba Algeria yimid teendooyin bay magaalada korkeeda ka dhisteen waan maqlay markaan ogaaday baan marka memorandum ku saabsan taariikhda ogaadeena taariikhda uu gumaysigu soo galay sida loo galay intaan qoray baan u geeyay marka aad bay maartay u baraarugeen wax hadda ka hor ay maqlayna ma ahayn marka ballan waxay iga qaadeen waxay yiraahdeen markaan ku noqono Denmark yaan madaxdana la tashanayna haddii madaxdu fikradda aanu u soo jeedin ay naga ogolaadaan waan ku yeeraynaa sidii bay noqotay markii ay meesha tageen bay ii soo direen martiqaad markii ugu horeysay ee tagay waxay bishii Mars 8 iyo 78 Copenhagen markii ugu horeysay tagay marka groupkaasi aad bay maartay taageero xoog ii siiyeen waxay ii suura galiyeen jaraa'idka Danish ka soo baxo dhan inaan la yeesho maartay ay iga qaadaan interview ama waraysi telefisyonkooda inaan maartay wax iga weydiiyaan taariikhda qadiyada ogaadeen adigu dhowr bilood bay mar walba tuulooyinkooda xataa ay ku sameyn jireen seminar ku saabsan ogaadeen oo xataa musawiro ay meel iyagu ka heleen ay soo saarayeen ay ku dhijinayeen oo dadka oo dhan ay gaarsiinayeen dadkaas shacbiga la gumeystay ogaadeen in garab la siiyo waxa markaa dhacday markii jaraa'idkaasi ay meesha ay soo qoreen yaa nin macallina oo magaalada Lund jaamacadda Lund wax ka qora oo Soomaaliya horaan u tagay qadiyadana aad la socda iigu yimid meesha garab buu siiyay isaga iiga turjumi jiray maartay dhammaan kulamadii aan la yeeshay oo dhan waxa dhacday marka Uppsala University yaa markii jaraa'idkaas ay arkeen ii soo direen invitation ay leeyihiin waxaan samaynaynaa seminar ogaadeen ku saabsan kaalay meeshii baan tagay maalin buu socday seminarkaas marka gabadh journalka ugu weyn Afton Boston la yiraahdo Norwich ka soo baxa oo Soomaaliya horaan u tagtay baa iyaduna meesha timid iyaduna markaas waraysi dheer ee meesha iga qaaday oo journalka ay subaxii maalinta ka dambeeyay ku soo saartay marka adigu waa taariikh dheer socodkaygaas labada goor aan ku tagay meesha sababtiisi weynayd ee bilowgeedana saas u ah ma kula tahay in loo baahan yahay in wax laga bedelo sida uu halganku u socdo ilaa intaan maaragtay ka qayb galay talaabooyinkan la doonayay in lagu xoreeyo Ogaadenia waligay waxaan aaminsanaa sida marba dhismuhu yahay in wax laga bedelo haddii aan wax laga bedelin inaan waxba noo soconin iyadoo dadku wada niyeysan yihiin oo doonayaan in la xoroobo laakiin mar walba waxaa inaga maqnayd in habkii jabhad ay lahayd dadkii ku maartay mudnaa ee ku haboonaa inay waxaan hogaamiyaan inay maartay hogaanka qabtaan taasi marna ma dhicin taasoon dhicinna waxaan u malaynayaa waxa arabtu yiraahdaan xalaqa mufraga baynu ku jiri doonaa waana la samayn karaa waxaan rajayn dhalinyaro badan oo hadda dareenku wada gaaray oo wax hadda ka hor in ogaaday way jiraan in jiilkiinin idinka anaga maartay naga dambeeya inay u suura gasho inay jabhad run ah oo tiirar ki ay jabhad lahaan jirtay ku dhisan inay sameeyaan taas haddii la helo waynu xoroobaynaa shakina waxaan aanan ka qabin anuu ma ogi inaan nolol ku arki doono inkastoo aan hubin inaan nolosheeda ku arki doono waxaana shaki aan lahayn Ogaadenia inay oo lama
horaana inay xoroobi doonto. sida aan la socono ururka ONLF laba kooxood ayuu u kala jabay, kooxda Maxamed Cumar uu hogaaminayo iyo golaha sare iyo kooxda golaha sare. maxaa kalifay kala jabkaas adoo noo sharxay? horta run ahaan waxaa un iskaga hor yimid uun afkaarta uun ku saabsan sida halganka loo fulin lahaa. marka aad anigu ugama qayb gelin khilaafyadoodaas badan, waxaa yeelay raggan ku dagaalamayay maaragtay ONLF-taba rag mar dhow soo galay unbay ahaayeen jabhadda iyo halgankaba, oo aan hadda ka hor aan raad weyn aan ku lahayn. waxaana taa dhalisay markii dawladdii Soomaaliya ay burburtay yaa dad badan oo dibadda u soo baxay oo markii hore Somali citizen ahaa yaa waxay noqdeen hadda ogaadeen citizen. marka khilaafka weynankiisa meelahaas ka bilowday dad aan lahayn maaragtay fikrad aan u qalmin hoggaan hadda ka horna aan ka soo qayb gelin yaa dani waxay ku khasabtay mar hadday originkoodii dhulka ahaayeen wax kale oo ay qabtaan aysan jirin inay maaragtay tan ay isku dayaan inay maaragtay bal ay wax ka qaban karaan. khilaafku horeysa horta taasaa dhalisay dadka ONLF-ta hadda isku sheegay oon raad weyn ku lahayn marka hore halganka qadiyadda Ogaadeniya. wixii marka isku horgamaadkuna marka wuxuu isu bedelay un wax shakhsi ah. markuu shakhsi noqdayna nin walba marka tabartiisii iyo sidii isku difaaci karay unbuu galay ilaa dhibaatooyinka hadda yaalla raadkoodu wuxuu ku salaysan yahay dhibaatada taa ka dhalatay. waxaanse rajaynayaa in nin walba uu dib intuu maaragtay isugu noqdo waa dan guud weeye, ma aha wax shakhsi ma aha, in la isugu yimaado danta guud sidii maaragtay ummadeenna mar walba dhibaataysan Tigray iyo Amxaaro mar walba ay laynayaan, ay dhacayaan, ay kufsanayaan, inaynu ka danqanno oynu wixii shakhsiga ilowno oonu isu nimaadno oo halgankii shuruudiisii asaasiga ahayd lagu soo noqdo oo qorshahaas la wada galo. saasay ila tahay. buugga aad qorayso kana qorayso qadiyadda Soomaali galbeed ama Ogaadeniya cinwaankiisu muxuu yahay? cinwaanno badan baa hor yaala, laakiin midka aniga aad ii taabanaya waxaa weeye cinwaankii muxaadaradii u horreysay oo aan Algeria ku qabto 1967 bishii Mars 9keedii. cinwaanka muxaadaradaas wuxuu ahaa kayfa mazaqa al-isticmaaru watani as-Soomaal. marka cinwaankaasaa weli aad ii horyaala, cinwaano badan way horyaalaan. marka haddii ay ii suuro gasho inaan soo saaro oo aan tabar u helo cinwaankaasaan anigu aad maaragtay ugu hayaa farta. goorma ayaad rajaynaysaa inuu buuggu soo baxo maadaama muddo la sugayay? horta dhibaatooyin badan baa ay hortaagan. buuggan 3 qaybood weeye. qayb waa historikii taariikhda Soomaalida wixii anigu aan u yeeshay maaragtay aqoon oo gumaysigii iyo qaybahii iyo waxyaalihii dhibaatooyinkii badnaa ee ummadda la soo factirsaday. midna waxaa weeye qaybna waxaa weeye dadka halganka inta anigu gobjoog ka ahaa faraha la soo galay ee ka soo qayb galay inta aan aqaano magacooda nin walba maaragtay kaalintii uu ka taagnaa ama ha noqoto positive ama ha negative ha noqoto aan intaan wax uga ogahay ama qoran in ogahay anigu. ta saddexaad waxaa weeye aniga biographideedii weeye ilaa yaraanteedii afar jirkaygii qadiyadan halganka nationalistka Soomaaliga ah marba wixii igu kordhahayay marba meelihii aan u soo maray ilaa maalinkan maanta dhacdooyinka aan goobjoog u ahaa wixii aniga igu hor yimid shakhsi ahaan wixii ii suura galay dadkii ii suura geliyay inkastoo dadkii ii suura geliyay waxa ii suura galay ay u badnaayeen dad ajnabi ah oo ogaaday waxaan daafacaya wax xaq inay yihiin. marka soo saaridiisa waxay ku xiran tahay duruufta material ii suurowda. markay taasi aan helo soo saaridiisu way saaranaysaa waana soo baxaya ama sanad ha qaato ama ka yar ha qaato ama ka badan ha qaato. luqadee ayuu ku soo baxayaa buuggu? shakhsi ahaan yihiin carabi.